wiilka daada yar ee dunida ka yeelay hal tuulo oo lagu wada sheekaysto. Mark Zuckerberg, asaasaha Facebook, ayaa galay saacadihii ugu walwalka badnaa. Xalay 4 bilyan oo qof ayaa go'doon ku galay barihiisa internetka kolkii ay daafaha caalamka ka baxeen adeegyada WhatsApp, Instagram iyo Facebook. Dadka qaarkood waxay uga dhignayd in qol mugdi ah lagu qafilay ama in baadiye kharfo ah looga dhuntay. Dhibaatada waxa uu hooyo ah inay qabatimeen isticmaalka aaladda Facebook, WhatsApp iyo Instagram oo mulkiyadeeda uu leeyahay maalqabeenka Mareykanka ee Mark Zuckerberg ayaa hawada ka maqnaa 6 saacadood oo xiriir ah. Waana muddadii abid ugu dheerayd ee ay shaqayn waayaan. 2019 ayaa la xasuustaa in sidan oo kale Facebook uu shaqada u joojiyay, balse muddo saacada kadib hawshiisii ayuu dib u bilaabay. Maqnaanshahooda waxa ka macaashay shirkadaha Twitter, Clubhouse iyo Telegram oo macaamiil badan ka helay, iyadoo culaysyo siyaada ah laga dareemay baraha Google, Snapchat, TikTok iyo Link. Shirkadda Facebook ayaa si maldahan u sheegtay inay hawada ka saartay baraheeda bulshada kolkii ay cilad ku timi hanaanka maamulka. Khuburo burcad internet ayaa u fariistay inay khalkhaliyaan kombiyuutarada laga hago Facebook, WhatsApp iyo Instagram. Qoraal lagu daabacay website-ka farsamada ee shirkadda Facebook ayaa lagu sheegay in la isku dayay in la carqaladeeyo adeegga maamulka shirkaddu ay isku weydaarsadaan macluumaadka muhiimka. Burcadda internetka oo dabagal ku hayay shirkadda Facebook ayaa weeraray goob aysan cid walba geli karin oo ay ceegaagaan siro loo ciilqabo in la daaqaado. Waana sababta looga fursan waayay in hawada laga saaro adeegyada WhatsApp, Facebook iyo Instagram. Waxaana qoraal website-ka lagu daabacay lagu yiri: kooxaheena injineerada ahi waxay barteen qaabka loola falgalo isbedbedelka jiheeyayaasha lafdhabarta u ah isku xirka shabakadaha u dhaxeeya xarumaheena, waxayna keeneen xogta arrimo lagu carqaladeeyay isgaarsiinteena. Marna ma dhicin in la jabsado unugyada ammaanka ee shirkadda Facebook. Sababtuna waa inaan awoodda hackersku gaarsiisnayn inay hal mar hawada ka bixiyaan 3 ka mid ah shirkadaha internetka ee ugu sarreeya adduunka. Waxaase sanadkan oo keliya ay la kulantay shirkadda Facebook ilaa 4 isku day oo abaabulan. Facebook ayaa la aaminsan yahay inay tahay shirkadda ugu ammaanka badan baraha internetka ee aan marna la hawaysan karin. Waxaana ka dambeeya Amazon iyo Microsoft oo labaad iyo saddexaad ku jira. Inuu mulkiyadeeda leeyahay farsamayaqaankii curiyay, inay haysato injineerada ugu xirfadda badan internetka iyo qalabka ay isticmaasho oo aan meel kale laga soo helayn, ayaa gaarsiiyay inay noqoto shirkad la isku halayn karo. Mulkiilaha Facebook Mark Zuckerberg oo macaamiisha ka raali gelinayay cilada ku timi shirkadiisa ayaa yiri: Facebook, Instagram, WhatsApp iyo Messenger ayaa hadda hawada dib ugu soo noqday. Waan ka xumahay carqaladaynta maanta. Waan ogahay inta aad ku tiirsan tahay adeegyadeena si aad ugu xirnaato dadka aad danaynayso. Shirkadda Facebook ayaa khasaartay 7 bilyan oo dollar xalay oo kaliya. Khubaradu waxay ku tilmaameen hoos u dhicii dhaqaale ee ugu degdega badnaa oo ku yimaada shirkadda. Khasaaraha maaliyadeed ee shirkadda ayaa ka imanayay dhinaca xayeysiinta. Saacad walba waxay luminaysay lacag dhan $5 milyan, waxaana taasi ay keentay in saamiga shirkadda Facebook uu hoos u dhaco 6% suuqa saamiyada magaalada New York. Madrasatul Muallimul Qur'aan, meel kastoodba adduunka aad ka joogto dushiisa minankaaga dhexdiisa, adoon meelna u dhaafin online maado ku qaado baro maanta duruusta. Mabda'eena islaamka qur'aanka ka meerso axaadiista ka miiso, siiradii nabigeena sallallahu alayhi wasallam siyar maanka ku kaydso. Madrasatul Muallimul Qur'aan waa malcamad online mahuraan aan la dhaafin midka aan ka warhayni. Malaa waa maqfuul ee maanka ha u furo haatan. Meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogto si online ugu biir mareegta xifdinta qur'aanka kariimka Madrasatul Muallimul Qur'aan oo kala xiriir nambarada WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda. Mike Schufer waa agaasimaha tiknoolajiyadda iyo farsamada Facebook. Waxa loogu yeeraa madaxa sirdoonka macmalka ee kombiyuutarada. Waa ninka xalay isku hawlay in xal loo helo caqabadii soo food saartay Facebook. Qoraal uu ku soo qoray Twitter-ka intii ay hawada ka maqnaayeen, waxa uu ku faanay inay khibrad u leeyihiin xalinta caqabadaha shabakadaha internetka. Gabadha lagu magacaabo Frances Haugen oo ka tagtay shaqada shirkadda Facebook ayaa durhad waxay soo dusisay dokumentiyo ku saabsan shirkadda iyadoo la hadlaysay CBS News
waxa ay sheegtay in shirkadu ay mudnaanta koowaad siisay kobcinta dhaqaalaha taa beddelkeedna ay dayacday badqabka amniga shirkadda taasoo keentay tuhun hor leh oo la xiriira bixinta siraha macaamiisha shirkadda.